قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهل فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داوديال ميل كستو آد جوجتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii almuqaabala oo hadahan oo kale aad kala socotaan shaashada caalamiga ee Astaan Hidaaya. halkani waa masjidka Al-Huda ee ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa. waxaanu maanta booqasho ugu nimid sheekheena Dr. Khaliil Cabdiraxmaan Mubaarak. intaanan barnaamijkeena hore u sii gudagelin waa kuma Sheekh Dr. Khaliil Cabdiraxmaan Mubaarak. sheekha magaciisa saddexan waa Sheekh Khaliil Cabdiraxmaan Mubaarak. waxa uu sheekhu dhashay sanadku markuu ahaa 1979 waxaanu ku dhashay magaalada Qabri Dahar ee dowlad deegaanka Soomaalida. isagoo oo daadiisu ka yar tahay 10 jir ayuu sheekhu Quraanka ku xifdiyay gobolka Hiiraan. waxa uu dugsigiisa sare ku dhameeyay magaalada Muqdisho waxaanu xalaqaadka masaajida ku soo qaatay dalalka Soomaaliya, Sacuudiga, Yemen iyo Masar. sanadkii 2003 waxa uu sheekhu dhameeyay digriga heerka koowaad ee daraasaadka Islaamiga ah isagoo ka qaatay jaamacadda Saba ee dalka Yemen. isla sanadkaasi sheekhu waxa uu ka qalin jabiyay markiiska culumta sharciga ee Sanca. sanadkii 2007 waxa uu sheekhu shahaadada dibloomada sare ee diyaarinta macallimiinta luqadda Carabiga ka diyaariyay maxadka luqadaha ee jaamacadda Boqor Sacuud ee dalka Sacuudiga. sanadkii 2012 ayuu sheekhu shahaadada masterka ama digriga labaad waxa uu ku diyaariyay takhasuska fiqiga iyo usuulka oo ka qaatay jaamacadda Boqor Sacuud ama Malik Sacuud ee magaalada Riyadh. sanadkii 2019 sheekhu waxa uu shahaadada sare ee PhD oo ku diyaariyay isla takhasuska fiqiga iyo usuulka ka qaatay isla jaamacadda Malik Sacuud ee magaalada Riyadh. waxaa sidoo kale uu sheekhu helay abaalmarino badan sida abaalmarinta koowaad ee tartanka xadiiska ee jaamacadda Malik Sacuud. abaalmarinta labaad waxa uu ku qaatay tartanka fagaara ka hadalka ee jaamacadda Malik Sacuud. sidoo kale waxa uu ku guuleystay abaalmarinta tartanka Quraanka ee isla jaamacaddaasi. dhinaca kalena sheekhu kutubta uu qoray oo aad u tiro badan waxaa ka mid ah: 1. النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم. 2. اختيارات الإمام النووي الفقهي في العبادات. 3. الكفاء في النسب بين الزوجين. 4. أحكام الكفارات. 5. أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي. 6. حكم المظاهرات. xilliganna waxa uu sheekhu wax ka dhigaa jaamacadda Badr, jaamacadda Bayaan iyo jaamacadda Al-Amriika Al-Maftuuxa oo uu isagu mas'uul ka yahay. sidoo kale waxa uu khadiib ka yahay masjidka Huda ee xaafadda Calaamadaha ee magaalada Hargeysa. waa tahay daawadayaal aynu intaasi kaga soo noqono taariikh nololeedkii sheekheena Dr. Khaliil Cabdiraxmaan Mubaarak. fadiilata sheekh ku soo dhaw barnaamijka almuqaabala. waad mahadsan tahay salaam ku dhawaad. waa tahay mowduuca maanta ku falanqayn doona barnaamijkeenan waa tarbiyadda awlaadda iyo dhibaatada ay ku yeelan karto social media amba teknolojiyada. su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya fadiilata sheekh muxuu yahay amba maxay tahay التربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa telefisyoonka Astaan TV khaasatan qaybtiisa Al-Hidaaya oo runtii dadaalo badan oo ay culimada ku marti qaadayaan sameynaya isla markaana mujtamaca ku wacyigelinayaan. haddaan kusoo dhawaado mawduuceena ama barnaamijkeena, su-aasha weydiisay waxay ahayd macnaha kelimada tarbiya. التربية waa kelimad carabi ah, asalkeedu waxay ka timid min rabba yurabbi. kelimadaas waxay ka timid min rabba yurabbi oo macnaheedu yahay bimacnaa kobcin iyo siyaadin. haddaba kelimadaas xagga luqada saasay ku tahay, laakiin xagga
macnaheeda mafhuumka tarbiyada ee guud waxaa weeye in la kobciyo qofka la tarbiyeynayo xagga maskaxdiisa iyo jidhkiisa iyo akhlaaqdiisaba intaba la kobciyo oo badaniyan wa caqliyan wa ruuxiyan wa sulukiyan intaba qofkii loo tahdiibiyo oo loo hormariyo ayaa tarbiya la yidhaahdaa. waxaa kaloo dhahaan culamada tarbiyadu waxay ka kooban tahay laba qaybood oo asaasi ah: التخلية والتحلية. التخلية waxa weeyaan in qofkii la tarbiyeynayay akhlaaqda xun laga hufo oo laga saaro, waa takhliya banayn weeye. التحلية waxa weeyaan in qofkii lagu qurxiyo akhlaaqdii wanaagsanayd iyo sifaadkii wanaagsanaa ee suluuga. tarbiyaduna afar qaybood ama afar asaas ayay leedahay: tarbiyo la yidhaahdo tarbiyat aljism iyo tarbiyat alcaql iyo tarbiyat alruux iyo tarbiyat alnafs. afartaas ayay ku meeraysataa. intaasoo dhan waxay ku salaysan tahay diinta islaamka iyo maxaasinta kitaabka iyo sunnada. صح فضيلة الشيخ aad baad mahadsan tahay. maxay tahay muhiimadda ay tarbiyadu u leedahay ubadka? runtii tarbiyadu waa shay qaali ah, aad iyo aadna muhiim u ah. ubadka in la tarbiyana waxa weeyaan waa shay diintu ina fartay oo waajib iyo xil iyo mas-uuliyad laga saaran weeyaan. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu uhi: yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. haddaad mu'miniin tihiin naftiinna iyo ehelkiinnaba ka ilaaliya naar. macnaha ehelkiinna wanaagga u horseeda iyo naftiinnaba xumaantana ka ilaaliya. jidkaas ayaa ahaa jidkii badbaadada. nabigana wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam: alrajulu raacin fii ahli beytihi wamas-uulun can raciyatih waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wamas-uulatun can raciyatiha. ninku wuxuu ka mas-uul yahay ehelkiisa, yowma alqiyaamana waa la weydiinayaa ehelkiisa iyo waxaa raciyadda ilaahay uu ammaano oga dhigay. gabadhuna waxay raciyad ka tahay ama raaci ay ka tahay ninkeeda gurigiisa, awlaadeeda iyo ubadkeeda iyo ninkeedaba waxa weeyaan waa raciyadii ilaahay u dirsaday inay ilaaliso laga rabo. saa darteed dhammaantood waxa weeyaan mas-uuliyad saaran weeye. tarbiyadu runtii awlaadda markii la tarbiyeynayo hadafku waxa weeyaan in la helo walad saalixa, walad suuban oo naftiisa anfacaya, oo waalidkiisa anfacaya, oo ehelkiisa anfacaya, oo mujtamaciisa bulshadiisa anfacaya, oo walad saalixa. waana wax u qaalisan ee la sameeyo weeyaan, ee waxa weeye laga shaqeeyo. xoolaha oo la badiyo waxaa ka qaalisan in ubad saalix la soo saaro. taas ayaa mujtamacii anfacaysa. marka tarbiyadu waa shayga gundhiga u ah ama horseedka u ah ee soo saaridda jiil wanaagsan iyo ummad wanaagsan oo waxtar leh. fadiilata sheekh, yaa ka qayb qaadan karaa tarbiyaddii ilmaha oo qayb ka noqon kara? runtii waladka tarbiyadiisa ama ilmaha tarbiyadiisa waxaa ka qayb qaata qaybo kala duwan oo ka mid ah gurigii ayaa ka qayb qaata. ilmaha marka u horeysa uu soo dhasho guriga ayuu kusoo dhalanaya, dabeetana labadiisa waalid ayaa tarbiyanaya. kadibna ilmihii wuxuu u baxayaa iskuulkii iyo malcamadii, halkaana tarbiya ka qaadanaya. sidoo kale asxaab buu yeelanaya, asxaabtana tarbiya ayuu ka helayaa, ama ha samaato ama ha xumaato. sidoo kale ilmaha waxaa saameyn ku yeelanaya bulshadu ku dhex nool yahay, lafteedu door weyn ayay ka ciyaaraysaa tarbiyada ubadka. waxaa laga yaabaa mar qaarkood in akhlaaq wanaagsan uu ka barto mujtamacii, waxaa laga yaabaa akhlaaq xun inuu ka barto. waxaa kaloo ka qayb qaata tarbiyada ilmaha media, ama tarbiya xun ha ka qaato ama tarbiya san oo wanaagsan ha ka qaato. marka intaasoo dhan waxa weeyaan waa masaadir tarbiya. laakiin isha u wanaagsan ama asaaska tarbiyada ilmaha waxa weeye waa guriga weeye. waxaa loo baahan yahay marka labada waalid inay iska xil saaraan tarbiyada ubadkooda, dadaalka u badan ay ku bixiyaan arrinkaas, ayagoo marka hore naftooda dhisaya oo aqoontooda kobcinaya oo tarbiyada macnaheeda si fiican u fahmaya. qofka hadduusan tarbiyada uusan garanayn see wax u tarbiyanaya. marka labada waalid waxaa loo baahan yahay inay tarbiyadii ay muxaadaraad badan ka dhageystaan, wax badan ay ka akhriyaan, ay macnaha tarbiyada iyo duruqdii tarbiyada iyo wasaa'ishii tarbiyada wax lagu tarbiyanayay inay bartaan ayaa loo baahan yahay. qaabka ugu muhiimsan
aad is leedahay waa loo tarbiyadayn karaa ubadkii aba ilmihii waa qaabkii runtii qaabka u wanaagsan ee wax loo tarbiyeeyo ama waalidku waladkiisa u tarbiyeeyo ama macallinku u tarbiyeeyo ardaydiisa waxa weeye alqudwa alxasana taasoo macnaheeda tahay dayasho wanaagsan in waalidku uu u noqdo ubadkiisa tusaale wanaagsan oo akhlaaqdii matalaysa oo ay naftiisa ka muuqato suluugii wanaagsanaa akhlaaqdii wanaagsanayd qowlkiisa iyo ficilkiisa uu hagaagsanaado si ubadkiisu ugu daydaan oo akhlaaqda wanaagsan uga daydaan maxaa yeelay ubadku waxay ka baranayaan waalidkooda ficilkiisa ayay ka baranayaan in ka badan intay qowlkiisa wax ka baranayaan maxaa yeelay hadii jeer ku dhex nool yahay waxa ay arkaan waalidkii inuu jecel yahay iyaguna way jeclaanayaan waxay arkaan waalidkii inuu neceb yahay iyaguna way necbaanayaan sidaa darteed suuragal ma aha waalidku inuu ku tarbiyeeyo waladkiisa wax asagu uusan ku dhaqmaynin tusaale ahaan waalidku haddii uu maalan beenta sheegayo suuragal ma ah inuu waladkiisa ka reebo ama uu ka fogeeyo akhlaaqda xun ee ah beenta asagii baa been sheegaya sidoo kale suuragal ma aha inuu waladkiisa salaada ku tarbiyeeyo asagoo salaadii dayacaya ama aan u dadaalayn nabigeena sala allahu calayhi wasalam ilahi wuxuu ku tilmaamay maadaama uu yahay imaamu lmurabbiin kuwa wax tarbiyeeya imaamkoodii wuxuu ilahi ku tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowm alaakhir rasuulka ilahi waxaa idinku sugan buu ilahi yidhi dayasho wanaagsan dayashada wanaagsan haddaba waa shay qaali ah waa in qofka murabbiga ah naftiisa marka hore u hagaajiya intuusan qofka uu tarbiyeynaya uusan hagaajinin waa inuu horta naftiisa xumaantii ka fogeeyaa wanaaggan uu ku sifeeya markaas ayay u fududaanaysaa tarbiyadii haddii kale waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay waxaa la wariyaa in khaadimkii haaruun arashiid wuxuu ka mid ahaa khulafaa dowladihii islaamkii hore khaasatan dowlad alcabaasiya ayuu khaliifo ka ahaa marka haaruun arashiid khaadimkiisii ayaa wuxuu ku yiri imaam shaafici raximah allahu tacaala isagoo la jooga yaa imaam ninkan ku ag fadhiya waxa weeyaan buu yiri waa murabbiga awlaada khaliifata haaruun arashiid saa darteed maanta aan kaa faa'iidaysanay bal kelimad yar ninkan mu'adibka ah ee caruurta madaxweynaha muslimiinta tarbiyeynaya laga yaabo mustaqbalka inay noqdaan hogaamiyaashii muslimiinta bal kelimad yar dheh buu yiri markaas u soo jeestay imaam shaafici wuxuu ku yiri dhegeyso yiri inta aadan awlaada khaliifaha ama madaxweynaha muslimiinta aadan tarbiyeyn horta naftaada hagaaji buuri maxaa yeelay indhahooda ilmaha yararka ah aday ku eegayaan buuri haddii aad hagaagsanaatana way hagaagayaan haddii aad ugu xumaatana way xumaanayaan buuri marka hore naftaada islaaxi kadibna ayagii islaaxi buuri marka taas waxay tusinaysaa mabdii hadda aan sheegayno alqudwa alxasana barbaarintii asbaabo dhowra oo lagu barbaarin karaa ma jirto ubadkii oo lisleeyahay dhowrkaas asbaabood waxay sabab u noqon karaan in ubad wanaagsan ay soo baxaan oo barbaarin wanaagsan runtii asbaabaha ama waxyaabaha lagu tarbiyeeyo awlaadu way fara badan yihiin wax hadda aan kusoo koobi karno fadhigan oo kale ma aha waxay u baahan yihiin duruus badan iyo muxaadaraad badan laakiin haddaan wax ka soo qaato yani waxyaabaha lagu tarbiyeeyo ubadka waxaa ka mid ah in ubadka markay yar yihiin aad caqiidadii barto ood ku beerta qalbigooda iimaankii iyo arkaanta islaamka aad ku barbaariso isla markaana aad u sheegto in adduunkan uu yahay daar alcamal daartii laga shaqaysanayay aakhirada ay tahay daartii loo shaqaysanayay oo u sheegto inuu jiro cadaab alqabr iyo naciim alqabr iyo xisaab oo ilmihii aad rabbigiisa aad ku xidho subxaana wa tacaala maxabada ilaahay maxabada nabigiisa calayhi salaatu wasalaamna qalbigiisa aad ku beerto taasi wax weeye waa shay asaas ah oo muhiim ah isla markaa in aad yani ku xoojiso qalbigiisa muraaqabat allahi caza wajal ilaahay muraaqabadiisa iyo ilaahay inuu markasta uu muraaqabeeyo oo ilmihii dareensiiso inuusan ilaahay subxaana wa tacaala marnaba uusan ka dhuuman karin haddii dadku ayna arkayn mararka qaarkood
dadkii xumaan uu ka qarsado ilaahay subxaanahu watacaala inuusan iska qarin karin oo markasta ilaahay subxaanahu watacaala uu muraaqabeynayo marka taasi ilmaha waxay ku beeraysaa yani xasaana daatiya in uu xumaantii iski u naco asagoon la kontroolin oo markasta la ilaalinin inuu asagii xumaantiiba naco oo ka fogaado wanaagiina uu jeclaado asagoo ilaahay subxaanahu watacaala radihiisa raadinaya iyo maxabadiisa waxaa kale oo muhiim ah in ubadku markay yar yihiin lagu tarbiyeeyo akhlaaqda wanaagsan qars alakhlaaq alxamiida sida runtii oo kale ammaanadii oo kale tawaaducii oo kale inaysan iskibrinin martiqaadka oo kale dadka inay diyaafa u sameeyaan dadkii u imaada inay soo dhaweeyaan oo ixtiraamaan in afkooda ilaaliyaan iyo adinkooda lagu tarbiyeeyo oo waalidkooda ku tarbiyeeyaan isla markaana akhlaaqda xun ay ka ilaaliyaan ubadkii intay yar yihiin sida beentii iyo xantii iyo caydii iyo dulmigii iyo qishkii iyo khiyaanadii iyo wixii la midka ah waxaa kaloo muhiim ah in ubadku hadday khaldamaan aan markiiba lagu degdegin in loo gacan qaado ama la garaaco laakiin lasoo maro maraaxil ka horeysa garaaca maxaa yeelay garaacu wax weeyaan waa marxalada u dambeysa marka u horeysa ilmaha haddii uu khaldamo waa loo yeeraa waa loo naseexayaa waxa in uu sameynaya inuu khalad yahay ayaa la dareensiiyaa kadibna haddii ay mararka qaarkood taasi anfici weydo waxaa la sameeyaa azajr canahan ilaa canaanto weliba canaanta waxaa ka horeeya in marar badan ilmihii loo naseexayo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad maxaa yeelay canaantu waa hadal kulul weeyaan ilmihii waxaa laga yaabaa inay qalbigiisa saameyn ku yeelato waana ilmo yar saa darteed marka hore in aan lagu degdegin canaanta oo marar badan loo naseexeeyo waxa inuu khaliya loo sheego si qarsoon weliba loogu sheego oo aan lagu fadeexaynin walaaladii hortooda aan la dhihin waad khaldan tahay ama kana tahay aan lagu dhihin ee loo naseexeeyo mararka qaarkoodna si jamaaci ah ubadkii intuu waalidkii soo kulmiyo uu u siiyo maxaan ku dhahay waanooyin iyo talooyin axaadiista nabiga calayhi wasalaam uu xafidsiiyo ku saabsan akhlaaqda haddaba haddii ubadkii uu khaladkii kusii socdo oo waanadii ayna wax u tarin inuu canaanto waxaa laga yaabaa inuu khaladka kaga waantoobo canaantaas hadday taasi anfici weydo in uu mararka qaarkood ka jeedsado oo uu oga dhiga nooc ciqaab ah inuusan la hadlin maalan maalin oo kale uu ka aamuso hadduu wax ka dalbado inuusan dalabkiisa u ajiibin taasi waxaa keenaysa ilmihii dib iskugu noqdo oo khaladkiisii u dareemo dabeetana uu isa saxo hadday taas anfici weydo waxa weeye xalka u dambeeya waxa weeye in ilmihii la edbiyo oo ul fudud lagu garaaco isla markaana garaac kulul aan la garaacin garaacuna sharcigeenu uu ku jiraa oo waxa weeye waa nooc tarbiyada ka mid ah laakiin ma aha xalka u horeeya waa xalka u dambeeya ilmaha lagu edbiyo markii yani dhammaan siyaabihii aan soo sheegnay ay ilmihii lagu tarbiyeyn waayo ama wax ku qaadan waayo markaas ayaa garaaci la sameynayaa garaacana waxa weeye waa laga ilaalinaya ilmaha wejigiisa in la garaaciyo madaxiisa waxaa kaloo laga ilaalinaya garaac kulul oo ilmihii dhaawac u geysanaya waxaa kaloo oo laga ilaalinayaa in garaacii waxa weeye uu noqdo garaac daran oo ilmihii dhib u geysanaya ayaa laga ilaalinayaa sidaa darteed tarbiyadu waxa weeye macno ballaaran runtii laakiin waxyaabaha u muhiimsan taas intaasaa ka mid ah sheekhaad bad mahadsantay waalid badani waxaanay jecel yihiin inay ubadkooda la saaxiibaan bal ilmihii ma lala saaxiibi karaa se sideeba ugu dhow ee lagula saaxiibi karaa runtii in ilmaha lala saaxiibo waxa weeye waa dariiqa tarbiyada mid ka mid ah ama duruqda wax lagu tarbiyeeyo kuyaabaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay sababtoo ah ilmihii baad soo dhawaysanaysaa oo waxa weeye saaxiib la noqonaysaa isla markaana ilmihii wuxuu dareemayaa inaad jeceshahay oo wuxuu kaa dhiganayaa saaxiib uu sirtiisa ku qarsado laakiin dariiqadaasi waxay ku habboon tahay ilmuhu markii uu kobco oo uu da ahaanna uu xoogaa yar weynaado oo uu noqdo teenage marxalad lagu yeedho ama marxalat almuraahaqa ilmuhu markii uu yani 11 jir iyo wixii ka sarreeya uu gaadho
ilaa yani dhowr iyo 10 sano intuu yahay waxa weeye marxalada muraahaqa marxaladaas ugu habboon in saaxiib laga dhigtay ubadkii waxaan la yiraahdaa ubadkaaga markii aad saaxiib la noqoto waxaad xalinaysaa mushkilado badan oo ubadkaas haysata maxay la marxaladaas marxalada muraahaqa waa marxalad adag oo laga yaabo ilmihii inuu marayo xaalad adu aan dareensanayn oo mesela jirkiisi maadaama uu xoog u kobcay xaaladaas oo waxa weeye uu ciyaalnimada inuu ka soo baxayo yani marxalad qof weyn oo aqliisku isku filan uusan gaarin waxa weeye xaalad dhaxu ku jira dheecaanka jirkiisa ka soo baxaya maskaxdiisa soo diinaysa ayaa badan tadarteed caradiisu way dhowdahay dulqaadkiisu uu yar yahay wuxuu dareemayaa inuu shakhsiyad madax bannaan u yeeshay uusan ogolayn markaas kale in la garaaco sadarteed waxa leeyahay xaaladaas kale in la garaaco waa khalad weey haddaba saaxiibtinimadu waa xalka u wanaagsan ee marxaladaas lagu xallin karo haddaba waxaan is weydiinaynaa qaabkeed oo la saaxiibaysaa ilmahaaga marka koowaad horta ilmaha waxaad siinaysaa masaaxo xornimo ah bimacnaa awaamirun ha siinin waxaa samee waxaa iska daa waxa weeye asagu ha doorto wuxuu jecel yahay laakiin adigana tala ku yeelo oo wixii la ogow hadduu wax khaldan doorto waad ka sixi laakiin adigu mar kasta amar ha siinin marka labaad ilmihii la sheekayso la fadhiiso la dood su'aalo weydii su'aalaha ku weydiiyo oga sheekee acmaashaada iyo shaqadaada sidaa darteed taasi waxay goolxadh u noqonaysaa inuu asna uu kaaga sheekeeyo mashaakishiisa iyo dhibaatadiisa marka aad naftaada uga sheekayso asna naftiisu kaaga sheekeynayo waxbarashadiisa iyo mushkiladaha haysta iyo caqabaduhu waajahayo taana waxay ku fududaynaysaa inaad si fudud aad u daweyso u xaliso maadaama ilmihii sirtiisa uu kuu qarsanayo sidoo kale ilmaha inta uu kuu warramayo ha ku degdegin in aad ra'yigiisa aad khalad ku xukunto ka dhegeyso wax badan ha ku degdegin inaad markiiba aad waad khaldan tahay kana tahay maxay taas waxay keenaysaa ilmihii qalbi jab iyo inuu kalsooni la'aan u dareemo waalidkiisana uu ku kalsoonaan sidoo kale ku dhiirigeli hadduu wax wanaagsan sameeyo ku dhiirigeli oo ku ammaan taas waxay keenaysaa inuu maaragtay furfurnaado oo si fiican oo xorriyad leh kula sheekaysto iskana ilaali marxaladan san soo tilmaanay inaad garaacdo maxaa yeelay qofkan wuxuu isku arkaa inuu weyn yahay oo marxaladda muraahaqa inuu weynaado isku arkaa garaacuna waxa laga yaabaaba inuu sii fogeeyo kaasi dido oo ku naco ayaa dhici karta sidaa darteed garaac iskaga fogow waxyaaba inahaasaa is leeyahay yani waa lagu soo koobi karaa qaabka loola saaxiibayo ilmaha ma jiraan wadooyin khaldan oo dadka qaar ay qaadaan iyagoo isle waxay ka qayb qaadan kartaa tarbiyaddii wanaagsaneyd laakiin waddo khalad ay tahay wadooyinkaas way jiraan siyaabo khaldan oo waalidiinta qaar ay waladkooda u tarbiyayaan ayagoo isla ilmihii waad hagaajinaysaan laakiin waxaa ka khaldan qaabkii tarbiyada ayaa ka khaldan ama waxaa laga yaaba waalidkani inuusan fahansanaynba tarbiyada sida awlaadda loo tarbiyeeyo iyo qawaaciddii tarbiyada ayaa ka maqan waxyaabaha yani khaladka ee awlaadda mararka qaarkood lagu tarbiyeeyo waxaa ka mid ah dilka faraha badan dilku ilmuhu waxa weeye uu kusii fogaanaya haddii lagu badiyo oo mar kasta ilmihii la dilo waxa weeyaan waxay u keenaysaa ilmihii inuu waalidku kalsoonaan inuu naco inuusan waxba ka qaadanin xataa ilmaha shakhsiyaddiisii bay dilaysaa waxaa kale oo yani ka mid ah siyaabooyinka khaldan wax loo tarbiyeeyo cayda in ilmihii la caayo ama la aflagaadeeyo ama la dhaho waxaa ma garanaysid waxaa ma fahmaysid kanaa tahay waxa ilmihii qalbi jab bay u keenaysaa marka caydu xal ma aha yani tarbiyana ma aha sidoo kale ilmihii inuu arko waalidkii oo qudwa sayi ah ama tusaale xun u noqonaya saan soo tilmaamnay waxa weeyaan qudwada wanaagsan ama dayashada wanaagsan ee waalidka dowr weyn ba ka ciyaaraysaa tarbiyada ilmaha haddii waalidkii uusan hagaagsanayn oo asagooba wax ka khaldan yihiin oo maalan aabii maalan sigaarkii cabayo ama uu salaadii tukanayn ama uu been sheegayo awlaaddiis hortooda been ka sheegayo waxay taasi raad weyn ku reebaysaa tarbiyadii waladkiisa ayay raad weyn ku reebaysaa waxyaabaha khaldan ee dadka qaar ay sameeyaan waxaa ka mid ah iyagoo ilmahooda qalbi dhowraya oo ilmahooda ilaalinaya inaysan ilmahooda faragelinninba tarbiyadooda oo ay waxa weye u seeta dheereeyaan faraha ka qaadaan ilmuhu wuxuu doono uu sameeyo goortu doono uu baxo goortu doono uu guriga soo galo wuxuu doono uu sameeyo wuxuu doono uu daawado
taasi waxa weeye ilmihii waxay dilaysaa shakhsiyaddiisii. ilmo yaroo wuxuu noqonayaa bilaa akhlaaqa ayuu noqonayaa. sabankan aan joogno amba waqtigan la marayo tiknolojiyadii baa adduunka ka hana qaaday. caqabad ma ku noqon kartaa barbaarintii iyo tarbiyadayntii ubadka? runtii teknolojiyadan waxa weeyaan waxyaabahaas casrigan kusoo biiray caalamka, dhinac wanaagsanna way leedahay, dhinac xunna way leedahay. ama haddaan si kale u dhigno dhib iyo dheef labada way leedahay. waa sakiin laba af leh ama mindi laba af leh weeyaan. khayr iyo sharba waa loo adeegsan karaa. fawaa'ideedu waxaa ka mid ah ilmihii inuu macluumaad badan uu ka faa'iidaysanayo internetkaas, ama hadduu telefisyon daawado waxyaaba macluumaad iyo xoog badan uusan ogeyn oo caalam ka jirta uu faa'iidaysanayo. muxaadaraad inuu ka dhegeysan karo mararka qaarkood ama duruus kala socon karo. laakiin dhinacii kale waxa weeye dhibaatooyin badan bay leedahay. internetka gaar ahaan waa teknolojiyada ugu badan ee ilmaha maanta saameyn ku yeelanaysa, khaasatan markii mobiladan ay soo baxeen casriga ah ee touch screenka loo yaqaano. waxa weeyaan waxaa arkaysaa ubad badan inay mobilada haystaan oo habeenii maalin ay daawanayaan. xataa qaar yar waxaa arkaysaa 5 jir ama 6 jir ah oo mobilada waalidku usoo iibiyeen ayagoo ay ka tahay waladkaaga kaa mashquulo ama wuxuu ku madadaasho ha helo. laakiin taas runtii raad xun ayay ilmihii ku reebi kartaa. waxaa laga yaabaa akhlaaqdii inay ka xumayso ama inxiraaf inay ku keento inuu akhlaaqdii wanaagsaneed ka baydho oo ilmo xun uu noqdo oo shar badan. raadadku ku reebi kara internetka waxaa ka mid ah ilmuhu wuxuu ka baran karaa cunfiga ama adayga iyo sharka ayuu ka baran karaa internetka, khaasna hadduu daawado filimaantan waxa weeye cunfiga xambaarsan ee dagaalka iyo dilka iyo wuxuu ay ku badan yihiin. sidoo kale haddii uu internetka aad u daawado waxaa ka dhalanaysa idmaan waxa la yidhahdo. idmaankuna waxa weeye ilmihii inuu addicted ku noqdo internetkii uusan iska dayn karinba oo uu qabto. yani sida matalan qofka markuu balwad u yeesho oo kale saas oo kale ay ku noqoto uusan marnaba iska dayn karin. habeenii maalin uu internetka daawado mooyaane wax kale oo uu qaban karo uusan jirin. raadadka xun uu ku reebi karo waxaa ka mid ah in akhlaaqdii wanaagsaneyd uu dhaawac u geysto, khaasatan haddii uu yani baraha xun ama websaydyada xunka uu galo ama sawirada xunka uu daawado. waxaa laga yaabaa ilmihii in akhlaaq xun uu ku reebo. xataa hadduu yani daawado waxyaabaha laga yaqaano aflaamta kartoonka, waxaa laga yaabaa in qaarkood ay akhlaaq xun xambaarsan yihiin, khaasatan kuwa reer galbeedka. waxyaabaha kale raadku ku reebi kara waxaa ka mid ah ilmihii inuu waqti ka dhumiyo oo waqtigiisa ka dayacmo. caafimaadkiisa xataa saameyn buu ku yeelan karaa ilmaha. indhihoo kale caafimaadkiisa uu dhibi karaa. sidoo kale waxaa laga yaabaa dad xun inuu la saaxiibo, social media kala saaxiibo oo ilmihii ay waxa weeye karkaarka weedaariyaan. waxaa kaloo ka dhalan karta ilmihii inuu noqdo ilmo xidhxidhan oo waxa weeye bulshadiisa dhex gelin. maxaa yeelay habeenii maalinba waxa weeye mobilka yarka ah ayuu meel kula jiraa xus ah oo halkaasuu maarata ku daawanaya. saa darteed waxaa yaraanaysa in bulshada soo dhex galo oo dadkii uu maarata la qabsado ayaa yaraanaysa. runtii marka raadad fara badan ayuu ku reebi karaa internetku ubadka in laga ilaaliyo muhiimta. sidaa looga ilaalin karaa sheekh internetka ubadkii maadaama wadadii dadka wadada wanaagsan ka faa'iideysanaya iyo kuwan wadada xun khaldan qaadaya internetka, markaas sidee baa loogu boorin karaa ubadkii oo kale amba xilligee bay u furantay inay internetka isticmaalaan aad ku talinaysa? runtii ubadka markii la leeyahay internetka laga ilaaliyo horta waa arrin aad u adag oo qofkii waxa weeye challenge badan buu waajahayaa. sababtoo ah haddii ubadka aad ka ilaaliso internetkii waxa weeye asxaabtoodii baa haysta oo jaarkoodii baa haysta oo waxa weeye kuwaasi la soo daawanayaan ama marka qaarkood adiga waxay kuu sameynayaan cadaadis inaad guriga internet usoo dhigto, mobilana aad usoo iibisa. maxaa yeelay asxaabtoodii baa haysta. marka arrintaa challenge weeyaan. laakiin waxaa muhiim ah oo looga ilaalin karaa in internetkiina aan gebi ahaan loo diidin, laakiin waqtiga la siinayo horta waqti xadidan noqdo, kooban loo ogolaanayo. maalan oo kale maalintii 24 saac inaysan ka badan xilliga ilmuhu internetka uu daawanayo nus saac. weliba waxaan leeyahay nus saacaas uu badan yahay. runtii intaas weliba nus saacaasna meel public ah
ilmihii uu ku daawaday internetkii oo guriga dhexdiisa ah yani meel qol xiran uusan ku daawan internetka yani waalidka ka ag dhawaadaan xilliga uu internetka uu daawanayo ama uu wax ka fiirsanayo si uu ola socdo waxaan uu ilmihiisa uu mashquulsan yahay iyo meelaha uu gelayo sidoo kale ilmihi in lagu wacyigeliyo khatarta uu internetka leeyahay iyo dhibaatooyinka iyo saameynta uu keeni karo caafimaadkiisa iyo waxa weeye suluugiisa iyo akhlaaqdiisa iyo inuu yahay aalad shar badan uu ku jiro sidoo khayr badan ba ugu jiro marka ilmihiisa uu ku booriyo jaanibka khayrka inuu ka faa'iideysto jaanibka sharkana inuu iska ilaaliyo oo ka digtoonaado sidoo kale ubadka inuu ku xidho website fiican oo uu wax ka faa'iideysan karo iyo baraha wanaagsan ee bulshada ee wax ama aqoon uu ka kororsan karo ama dad wanaagsan oo saalixiin ay ku jiraan wax ka faa'iideysan karo sida culimada iyo muxaadaraadka iyo duruusta ay bixinayaan oo kale iyo dadka wanaagsan ee waxa weeyaan wax bulshada anfacaya iyo ubadka anfacaya soo dhigaya inuu maaragtay uu ku xidho isla markaana waxaa jira barnaamij ubadka laga ilaaliyo YouTube-ka khatartiisa YouTube islaami ah jira ama channelo islaami ah fara badan oo waxa weeye ilmihii lagu xiri karo oo laga ilaalin karo baraha kale ee xun ee waxa weeye ilmuhu ayaa markaa qaarkood inuu galo raad xunna ku reebaysa marka inahaas aan kusoo koobi karaa baan isleeyahay waxyaabaha ilmaha laga ilaalin karo khatarta internetka oo runtii ahaa khatar soo ziyaadaysa maalinta ka dambaysa maxaa yeelay dadka internetka maamula dad islaam ma aha wadamada reer galbeedka waxa ay soo dhigayaan u badan wax weeyaan waxyaabo islaamka marar badan lid ku ah saadarteed ubadkii in laga ilaaliyo waa shay waajib ah sharcan aad baad mahadsantahay fadiilata sheekh guntii gabagabadii barnaamijka fariin taad u dirayso dadweynaha ina daawanaya ee jecel ubadkooda inay tarbiyad wanaagsan ay u helaan adigoo soo koobiya maxay tahay waxaan leeyahay waalidiinta waalid kasta waxaan leeyahay waladkaaga waa nicmo ilaahay ku siiyey oo qaali ah waladka ilaahay ku siiyana waa ammaano ilaahay uu ku dhiibay ha ka fikirin oo ilmahan cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo dharku xidhan lahaa iyo iskuulku wax ka baran lahaa had iyo jeer ku fikir ilmahan sidaad u ilaalin lahayd tarbiyadiisa u wanaajin lahayd aad ka dhigi lahayd ilmo saalix oo wanaagsan oo adigana ku anfaca naftiisana anfaca bulshadiisana anfaca taasina waxay ku imaan kartaa inaad juhdi badan iyo dadaal badan ku bixiso marka koobaadna saan soo tilmaanay naftaadu adigu aad islaaxiso si waladkaaga aad u islaaxiso oo adigana aad u noqoto tusaale wanaagsan marka labaadna aad wax badan oo ku saabsan tarbiyada aad barato maxaa yeelay tarbiyadu waa cilmi waa fanni waxa weeyaan in la barto u baahan inaad culimada muxaadaraadkooda in badan dhegeysato in aad kutubta tarbiyada ka hadlaysa aad akhriso haddaad wax akhrin karto inaad macluumaadka tarbiyada iyo qawaacidda tarbiyada iyo wasaaisha tarbiyada iyo tarbiyada waxyaabaha lid ku ah inaad wax badan aad ka taqaano si aad ubadkaaga markaa tarbiya wanaagsan ugu tarbiyaysto isla markaa inaad ogaato tarbiyadu inay tahay cibaado waa cibaado ilaah aad ugu dhawaanayso ilmaha haddii uu hagaagana waxa weeyaan waa beer aad beertay adiga iskale beertaas midhaha adiga iskale adduun iyo aakhiraba waad ku intifaacaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu kugu anfacaya xataa markaad dhimato waladkaa saalixa soo nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadam inqadaca camaluhu ila min halaath bini aadamka haddii uu dhinto camalkiisa wuu go-ayaa saddex mooyaane sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah ama sadaqa jaariya qofkii inuu la yimaado oo sadaqadii ay u socoto sida masaajid u dhisoo kale maalan ama walad saalix oo u ducaynaya ama cilmi naafica oo dadka anfacaya saddexdaas ayaa qofka anfacaya xataa markuu dhinto kadib marka waladka saalixa markaad dhimato kadib xataa wuu ku anfacaya wuu kuu soo ducaynaya sadaqadii wuu kaa bixinaya saa darteed waladkaaga inaad ku dadaasho juhdi badan ku bixiso ayaa ka qaalisan wax kasta oo adduunyada ka mid ah inaad ku dadaasho aad iyo aad baad u mahadsan tahay fadiilata sheekh doctor khaliil cabdiraxmaan mubaarak waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna almuqaabala oo maanta marti amba aanu ku soo booqanay halkan oo ah masjidka alhuda fadiilata sheekh doctor khaliil cabdiraxmaan mubaarak waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkaasi intaanu ku kulmi doono dhankayga iyo dhankiinaba waxaan idinku dhaafaynaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية كيف تنساها وتغفل اليوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية.